ومحسنتين قدونك iyo guddiga labada aqal ama labada qaybood ee ka soo shaqeeyay dastuurkan waxaan rabay wixii aan islahaa malay maqlayaa horta maalintii labaad oo tobankan qodob laga hadlaya oo runtii waxaan u malaynayaa qolada xiriirka inoo haysa way ogyihiin dadka ka hadlay already waaba waxyaalihan markii hore islahaa aada looga hadlay oo hadda ugu dambeyso wasiir Fawziya yay u badan yihiin waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadnaq guddiga labada qaybood oo runtii arrintan juhdi badan geliyey siday u qoran tahay iyo waqti ay geliyeen markaan fiiriyeyna runtii waxay ku xisaabtameen dadka ay dastuurka u sameynayaan ee Soomaaliyeed ee maanta joogay waa intii dhalatay intii burburku uu jiray 34 sano ugu dambeysay marka taasa ku sii dhaweynaysa ama ku kalifaysa inay waqti badan geliyaan faahfaahin badan geliyaan fasiraad badan geliyaan si loo fahmo waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin arrintaas waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo su'aal inaan weydiiyo guddiga maalimihii la hadlayay hadda cutubkii koowaad iyo kii labaad oo gabagabaan maraynaa maalin dhoweedna waxaadna tusteen sida dadka hadlaya aad ugu tala gasheen oo aad u qorayseen marka su-aashaydu waxa weeye haddii aad ururisaan dadka si ay u hadleen dabcan baarlamaanka oo dhan ma hadli doono qayb ka mid a hadlaysa ugu dambeyntii maxaad ugu tala gasheen habka go-aanka gaarista dambe ee qodobada laga hadlay ma dadkii hadlay ayaad ku salaynaysaan oo ayagii aad inta qortaan haddii baarlamaanka 329 yahay oo 150 ay hadasho tusaale ahaan ururintaas ma waxaad ku soo ururinaysaan intii hadashay qaabkaas waxaan jeclaan lahaa inaad fasiraad naga siisaan habkaad u ururin doontaan taa haddii aan meesha uga gudbo aniga inta badan waa la qaatay waxyaalihii markii hore ii diyaarsanaa laakiin mid iyo laba ayaan rabaa inaan ku biiriyo aragtidayda ah sida ay u qoran yihiin in wax laga bedelo qodobka 11 fikradiisa labaad waxay leedahay وقضبك كهذا يا إنا وحنقيح لها أرنت له ورنتي آل لوجه هذي محاني هذا تن حسانة ده دتك ويكوا ده هذين لكن أرنت حسانة ده أول كوما يجرين قابك الله دقي وحن ولجي ده قفك كما علينيسو مسؤولية أوهايو qodobkaas xogaa mugdi badanaa ku jira dadka oo dhan baa ka hadlay oo iga horeeyay qodobkaas sababtii meesha loo keenay ama faahfaahin inaa ku dartaan ama isagoo dhan meesha in laga saaro because shaki badanaa ku jira because xasaanadda meelo badan oo dastuurkay ku caddahay qofka xasaanadda leh haddii uu dembi la yimaado sida loo wajahayo haddii falka uu yahay fal uu markaaba gacanta kula jiro oo fal dembiyada asagoo ku jira lagu qabto hab loo wajahaa jira haddii uu yahay kiis kale oo dacwadi ka timidna ayadana sidoo kale qofka xasaanadda leh miday doontaba ha ahaato marka qodobkaas waxaan dhihi lahaa ama meesha laga saaro ama wixii kalifay ama faahfaahin ha laga sameeyo qodobka 15 sidoo kale wuxuu leeyahay qodobkan asigana sidoo kale aada looga hadlay wuxuuna u qoran yahay sidan qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad kale ereygaas dad kale waxaan ka hormarin lahaa kelmadda jublan ka dhigi lahaa ururaan dhihi lahaa markaas wixii fasiraadoo lagu dari kara in lagu daro
inuu ku biiro ururo siyaasadeed, kuwa shaqaale, kuwa bulsho and so on. way ku jirtaa arrinta ururo way ku jirtaa laakiin dhexday uga jirtaa oo urur shaqaalaha ku jira. horta qodobka asaasaan u dhigi lahaa. isla qodobka laftiisana waxaa jira cidda lagu biirayaayo inay caddahay oo lagu caddeeyo sharciga. tusaale ahaan qof hadda iga horreeyey baa ka hadlayey sida hadda halkan uu qoran yahay haddii la yidhaahdo wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro dad kale haddii la yidhaahdo noocyada maanta ina haysata ee dalkeena oo argagixisada ugu horeyso kuwan kale ee diinta islaamka noogu soo gabaday kulligood waa firqooyin. marka taa waxaan dhihi lahaa oo sharciyeysan in lagu daro cidda lagu biiraya inay tahay cid sharciga waddanka u yaala waafaqsan cid walba inaan lagu biiri karin halkaa in lagu caddeeyo. qodobka 17aad fakradiisa 2 waxay u qoran tahay iyadana sidan 17aad qofka hoygiisay ka hadlaysaa. qofka hoygiisa sida marka hore ay u qornayd ayay igula habboon tahay in loo daayo isla markaana marka hoygiisa la baarayaay in loo akhriyo sababta hoygiisa loo baarayo qofka muwaadinka ah aan la iska baarin. waxaa kaloo dhici karta waxaa laga baaraya laftooda ma hubba ma wax kalaa ma kiis kalaa lagu haystaa ayada lafteeda haddii lagu caddayn karo waxaa la baaraya in dastuurka lagu caddeeyo. qodobka iigu dambeeya ee 19aad fakradiisa 2 waxay sheegaysaa muwaadin kasta qodob saan u qoran yahay sorry muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay soo gelidda iyo ka bixitaanka iyo joogitaanka waddanka. qodobkan marxaladdan hadda joogno haddaan fiirino waxaan dhihi lahaa bal wax caddayn ah lagu daro. tusaale ahaan hadda waxaan xasuustaa 2 bilood inay ahayd baan malaynaya ka hor dal dibadda ahaan safar ka soo ahaa markaan immigrationka imid waxaan la kulmay qoladii immigrationka oo waxay igu yidhaahdeen inta u safraysaa waxaan ku yidhi soomaaliyaan u safraya. waxaa la yidhi wax documenti ma haysataa oo soomaalinimadaada caddaynaya. markaasaan ku yidhi maya. ID card ma haysataa maya. baasboor soomaali ma haysataa maya. kaa aan wataan haystaan ku yidhi. markaase waxay igu yidhahdeen soomaaliya uma safri kartid. ii fasira ayidhi san soomaaliya ugu safri karin da soomaalinimadaadaba wax caddaynaya ma jiraan. muran baana dhex maray qof dumar ay ahayd. waxaan ku yidhi cidda kaa sarraysa iigu yeer. waxay iigu yeertay nin kale. ninkiiba wuxuu ku yidhi baasboorka uu ku safrayo meeshuu ku dhashay ka fiiri. baasboorkiibay fiirisay mise waxaa ku qoran soomaaliyuu ku dhashay. ninka waa soomaaliya ku dhashay sii daa buu ku yidhi. waan soo safray intaan imid immigrationkan tegey. waxaan ku idhi ma sharci aada soo saarteenaa jira qofka soomaaliga oo dibadda ka soo safraya oo baasboorada kala wata soomaalinimadiisa wax caddaynaya hadduusan wadan inuusan dalka usoo safri karin. dabcan waa joogaa madaxa immigrationka. markaase waxay igu yidhahdeen arrin hadda ka hor baa jirtay oo odhanaysa ilmaha soomaaliga ee labada soomaalida iska dhaleen balse dibadda ku dhashay fiisa looga baahan yahay. labadiisu waali soomaaliya ku dhasheen ilmaha dibadda ku dhashay ilmahaas imanaya ee dalka markay u soo socdaan dalku galay u baahan yihiin fiisay u baahan yihiin. arrintaa lafteeda in lagu baraarugsan yahay bacdaba dhacda ay dhacday oo aniga igu dhacday ay ahayd arrintaas dad badan inay ka warqabaana laga yaabaa. marka arrintaasna bacdama qofka muwaadinka hadda qodobkan siduu u qoran yahay
inuu dalka imaan karo ka bixi karo ma iga dhamaatay guddoomiye waa mahadsan tahay marka arrintaasna waxaan dhihi lahaa guddiga idagoo mahadsan dadaalkiina runtii waa idinku ammaanayaa bal in lagu baraarugsanaado waa mahadsantihiin